arinta saxaaf Malaysia Kuala Lumpur ninka gangsterka dadka waxa waaye nafta u keenay maanta waxa waaye haduusan ka joojinin ummadda uu dhibaatada u geysanayo iyo dadku mataqaana waxa waaye raba inuu dulmiyo oo qabiil uusan ahayn sheeganayo maanta hooyadiis iyo walaalihiis oo dhan iyo wiilkiisa asaga u dhalay ninkan Ashraf waaye waa idin faa'iido hooyadiis abgaal waaye waqti uu dhashay kulli waa idin faa'iido waxa waaye maanta waxa waaye waxaan joognaa saxaafka rasmiga saxaafka walaalihiis rasmiga iyo wiilkiisa rasmiga maanta dhex taaganahay saxaafow shalay waa ku sheegay uqbaad markaan barnaamijkeeda aan soo sameynayay in mataqaana qofkan u soo jeestana inaan u soo jeestay maanta gurigaan dhex fadhiyaa hooyada aabaha hooyada weliga Allah midi lama keenay aabaha maanta u jeeda madiyaan keenay ninka keenay aniga waay ani muqallidi waa duubayin in iska hadlay nin iska baqbaqlay iyo ani xog fadhiso iyo dad mataqaana xogtooda dhab aan soo gudbiyaa illa Djibouti illa Hargeysa illa meel kastaba kuwa ka waaweyn oo madax qaarkood dhaleen aniga xogtooda keena aniga adoo maskiin oo shacib aan ku daahay saxaafo taas waa confirm boqolkiiba waay tanana cadaan kugu filan marka intaan magacyadooda iyo qabiilkooda kulli intaan gelin ama mid dul istaagin iyo wiilkiisa waqti uu dhashay iyo hooyadiisa abgaalka taqaana saxaaf Kuala Lumpur wax dhibaatada ummadda u geysatay waxa way taas waxa way xafis way cid ka rab wax u haysan jirto waxay hadda ka dambeeyo qof hadda dhibaatayso reerkaaga gacanta lagu hayaa number 1 number 2 ninka ciid aha inaan hadda musaafiris u qorsheynaysin oo waxa way mataqaan lacag rabta inaan kuwii booliska siisaano maadaama cunuga laba mar la xirayo la dhahay mataqaan sharci dibda ku sameeyso ciida hadii kale waa musaafirin booliska u hanjabeen inaad u qorshaysa inay xilsa maxay asi amir inaan kala wadaan rabtaan hadii ciida dhibaato loo geysto mar kale hadii ciida waxa way musaafiriyo jawaabteedu waa helaysaa baryana ma ahan haddaba dignin waa qabtaa saxaafo ani iskama hadlaani cunugaas miskiinka qabiil laan dheer ka dhashay laan dheer wax ma ahan ciidan ni Soomaaliyeed waa nin walaalkeena waaye nin dhalinyaro waa nin arday waaye gabar jeclaade oo idinka dhalato oo idinka ka soo doontay waa u diideen haddana ayada raacday ayada taqaan hoosta ka gashay oo absolutely ma dhibaatay kartaan hadda dhibaataysan jawaabteedu waa helaysaa kuwana jawaabteedu ka helaysaa hadii la yiraahdo taas waxa way digninta siinay way taqaana walaalayaal reerkan yaa waa reerkan ninka oo taqaani saxaaf waxa waaye maamada waxa waaye maamada waxa lahaa adduunka maamada u jecel yahay saxaaf awood iska dhaafan ku dhahay saxaaf wiigan waxa waaye ma seexanay wallahi bila ana beedishay adduunka uu u jecel yahay waligeed midi lama soo dhigin wiilkiisa adduunka u jecel yahay meel walba wuxuu ku qortay taqaana Ashraf taqaana al-atas ka in faayna marka waa qabiilkooda waa Yemen way qarawaa inay faayo taqaana waxa waaye maanta ana keenay hadii la yiraahdo marka waxa waaye wax kale uma keenin waxaan u keenay maadaama uu ninka ummadda dhibay maadaama Kuala Lumpur oo mataqaana dadka nafta u keenay in la edbiyo haduu diidane jawaabtiisu waa hela insha Allah taala waxa waaye maamada waxa la Zahro Hussein Salim waxa waaye Yemen muwallid waaye reerkan sagaal ay ka kooban yihiin intaan maana inta maqan waxa maqan Cabdiraxmaan yar dhaayo Yemen joogo waxa maqan gabar Najal dhaayo oo ay ka yar oo mataqaana la qabo urud u weyn reerkan ayda najma laha aydan waa la qaba xamar joogta saddexaas maqan iyo su'aal afartaas maqan iyo kan kareerku iyo fu'aad la asan waa maqan yahay inta kale waa kuwana waa 5 wiil iyo 4 gabdhood oo reerka saxaaf ay ka kooban habarta odayga ay dhaleen taqaana midna u dul istaagayna maamada Zahra Hussein Zalim waxa way muwallad odayga waa kaas odaygaas dhalay ilmahan dhan macna saxaaf odaygaas magaciisa Allah Saciid Ahmed yaslam Allah asagana muwallad iska dhal waaye labada hooyis abi iska dhal waa ninkan taqaana oo muwallad marka qabiilkooda laan dheeryaal oo Yemen laan dheeryaal ay kiina rabaan inay faayo wiilasha waxa way ninkaas oo kala wato Hussein Allah hada xamar u jooga Yemen oo ka soo noqday taqaana askarta hataa ku jira dawladdu hataa askari dawladdu u rutis garaysan waaye taqaana yarkaas khamiis wato Yemen hada jooga Ahmed Allah Yemen waxa jooga Ahmed Abdullah joogo ashaga Cabdiraxmaan Ahmed joogo Ahmed waa yarkaas khamiis wato taqaana gabadhana waxa u soo qaato waxa way gabadhu waxa Allah Zainab Allah waxa way waa la qaba saxaafi 3 sano ka yartahay waxay joogtaa mataqaana kaxda degmada kaxda degtahay nin xogaa dhaqaalis reerkan ayda ugu dhaqan macna ayda ugu dhaqaale fiican saxaafi adna ayda aroosisay aydan qarashka bixisay mataqaana aroos u sameysay waxa waaye adna dahabkeeda iyo meherkeedan waxa waaye waxaan sheegaa suuradeeda iyo guri wax dhan waxa waaye gabadhana bixisay Zainab bixisay 2000 iyo mataqaana 10 meelaas 2010 meelaas dhamaadkiisa ay ahayd mataqaana cunugan waa cunug Ashraf way waa cunuga oo laay wuu inkir way cunugan asaa dhalay wuxuu ka dhanaag abgaal oo ka dhalay naag abgaal oo Daawud ka dhalay markay 6 bilood cunugan uu jiray oo guri u deganeen naag shibis u deganeed waxa way Zainab lacag siisay saxaaf gabadhan soo guursaday adno soo guursaday oo u sheegay saxaaf wuxuu yiri
حاسكي لبادان سو غورسدي ادنا لا برشو ناكس ادنا رالي وادي عنقان هويديس اشرف waxay tiri ani naag la guursanay reerka cunuga ugu tagtay waa soo tahriibtay ingiriiska meelaha yurubta meelaha ay joogtaa waxa waa muuqaalka waa arki doontaa hadii la yiraahdo wiilkeedana way ka warqabtaa way salaantaa wiilkan hadda galaaskii phone 3 hadda dhamay rabaa taqaana phone 4 uu gudbooya in ashraf horta waxa waa cunudkiisa way wiilkan naagta abtaashiisa abgal way taqaana wiilkan ayaysa soo korsan marka maamadaas soo korisay marka adduunyada cunugan ugu jecel yahay adduunkan wuxuu ugu jecel yahay hooyadiis labadaas saxaaf laga maro hooyadiis mar walba waxa waaye hatta biilka muun guriysto si walba bulshadiisa u isticmaalo waxa waaye cunugan iskoolkiisa waxbarashadiisa waxa waaye saxaaf gacanta ku haya saxaaf intaas uu ku amaanan yahay hooyadiisna waa ka warqaba mar walba isla hadlaan intaas waa ku laakiin reerkan kale saxaaf isma salaamaan oo ma xiriiriyo badankooda ma xiriiriyo gabadhan Zainab bas saaxiibiin taas waa faanteen waa qisada reerkan oo dhan waa reerkan marka qabiilkooda in sheega reerkan waxa la al-atas waxa waaye laan dhereelkii waa sida Soomaaliya hawi idaaradka u kala baxaan markino oo weyn amal waa weyn ka way ninkan cidiisa in saxaaf waxa waa al-atas aad waxa waaye waa laan dheeryaal way ilaa hadda laan dheeryaal way madaxweynaha hadduu qabiil kale weynka u qaato ayaga waxay qaataan ra'iisul wasaare haddii madaxweyne qaataan qabiil macnaha waxa waaye ra'iisul wasaarayaal soo wada noqdeen waxay soo wada noqdeen wasiirro soo wada noqdeen waxa waaye soodka iyo koonfurta iyo waqooyiga waa degeen laakiin soodka yemen aad ugu badan yihiin laan dheeryaal way ninkaas aad laan dheero ah oo ra'iisul wasaarayaal qabiilkiisa al-ataska ay ka soo noqdeen inuu maanta qabiil oo Soomaaliyeed oo habargida inuu sheegto asagay gunnimo isarf xumo ku tahay سمعت حمنا أسيكوته ولا ليه صوتن كل وقفانان يمن نمدي كفانان قبيل كود الأتسك كفانان لكن أسوكم مفان وجونجون الشواي صحاف والله بلا أنا بدي شيء مركوا اسكسر الضوب وقصة كوبن أورير كانوا لا صدقني واقف تصحاف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته